Ethiopia waxay noo sheegeen inay dhexdhexaad ku shaqeynayaan ayna soo ragana soo loo yimi dawladooda dadka u sareeyay baa soo diray iyagana Muuse Biixina soo arkay oo wuxuu ku yiri kulan wacan daawadayaal iyo dhageystayaal halka nagala socotaan waa warbaahinta Daljir barnaamijkeena Martisoor maanta waxa marti noogu ah Boqor Cabdilaahi Axmed Cali oo kamid ah madaxda dhaqanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn mudooyinkii u dambeeyayna kamid aha madax dhaqameedkii ku sugnaa magaalada Laascaanood oo ay ka socotay gogosha ay ka tashiga gobolada Sool Sanaag iyo Cayn intii dagaaladu dhacayeen oo dhanna waa ku sugnaa Boqor Cabdilaahi ugu horeyn ku soo dhawo warbaahinta Daljir bal guud ahaan horta waxaad iga warantaa xaaladaha guud ee deegaanku hadda uu ku sugan yahay siday ku soo bilowdeen halgankan hadda socda iyo taariikhda fog ee halganka deegaankan iyo sida Soomaaliland ay markii u horeysay ku timi Bismillahir Rahmanir Rahim اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه اللهم صل عليه عدد من لم يصلي على محمد وهي marka hore cidii Soomaaliya ee dhageysanaysa salaanta islaamka ku salaamaya Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahayna waxaan ka baryayaa Soomaali inuu nasri wanaagsan oo nabadeed u soo dejiyo ilaahayna ka baryayaa oday Soomaaliyeed baan ahay da'weyn baan soo joogay waxyaabo badan baan wuxuu ka soo joogay ilaahay saasa nabad iyo caafimaad iyo khayr Soomaaliya oo wada gaara uga baryaya inta kadib marka hore waxaan u horeysiinayaa saddex khaatimo yaan soo joogay raydab khaatimo iyo gol khaatimo iyo khaatimadan SSC khaatimo oo khaatimada Soomaaliyeed baan u bixiyay raydab khaatimo Soomaaliya oo isgubaysa oo rasaastu dhinac walba u dhacayso oo qolo walba ku dhacayso yaa waxa raydab khaatimo fadhiistay odayaal iyo waayeel qabiilka Habaryoonis la yiraahdo waxay ku dhawaaqeen nabad Soomaaliyeed oo cod Ilaahay barakeeyay buu ahaa wax laalo wixii madaxa baa la dhigay wixii xumaan oo khabaar baa jiray ay baa jirtay wax kasta jiray sharci baa la samaystay aan qorreeyna maskaxda laga heshiiyay meesha buuhda la yiraahdo bariga shaxda la oran jiray waxaan garanayaa qofkii turub lagu arkay sita meesha ugu khabaar badan baa budad baa la sita maskaxda la soo dacaaran jiray qofkii turub sita lagu arko qofkii diin islaamka kalmad aflagaada ayna qofkii qof waxa qaban ku yiraahdo waa la soo qaban jiray arish meel ka dhisan oo hortiisu banaan tahay yaa inta labadilo loo xiro saxarad baa la saari jiray miiska leeg qofkii isku taagi jiray marka la diblaha loogu xiro yaa saxarada laga qaad jiray daqiiqado yaa carabka ku barar jiray markaas uu kitaab ku dhaaran jiray inuu tolo noqonay dhowrkii qof hore markii sidaa loo galay waxay noqotay arladii ammaan iyo nabadgelyo xabada babadhi taasaat reedab khaatimo way taas waxa reedab khaatimo loo ay ku magacaabtay reedab khaatimadii nabad reedab khaatimo goormay waxay ahayd waqtiga wax lama qori jirin waxay ahayd kontariyo todobadii meelahaas ahayd marka ma deegaan baa reedab khaatimo meesha la dhahamay waa tuulo ay ku taala galbeedka deegaanka Habaryoonis bay ku taala waa area Gaashamo waxa gaar ka soo xigtaa xaggan koonfurta ka soo xigtaa taas khaatimada nabadda ahayd kol khaatimo xigtay oo Laascaanood ku taal kol khaatimo waxay ahayd meeshii Soomaali dawladnimadeeda tii waqooyiga ka dhalatay laga dhisay ee la iskaga raacay iyadana dawladnimo lagu dhiso khaatimo dawladnimo yay ahayd oo qaybta waqooyi ah maantana waxaa tima SSC khaatimo waa khaatimo Soomaaliyeed baa la yiraahdaa magaceedu waa tahay iyada Soomaaliya oo dhan bay khaatimo u tahay ninkii isagu balaada ka dhigtana balaada ku noqonaysa laakiin Soomaaliya oo dhan bay u tahay khaatimo Soomaaliyeed taasna waa taas saddex asaas laga warramay waxa kale maanta sida waxaan u dhacay kullayba qorshe Ilaahay baa dhacay waxaan la dhacday aqli aan daacad ahayn iyo damaaci aan suuragal ahayn yaa dhacay dadku dadkiisu nabadba ku joogay
burburo badan baa dowladdii hore burburtay markay burburtay degaan weliba ismaamul buu ku talagalay qolada imika Somaliland subxoorta haddaad maqashaan Somaliland protectorate haddaan dhulbaatan ay kumaan jirin protectorate kuwa wax laga ilaalinayo oo daraawiish ka soo jeedaan loo ahayn markii imika ka dambaysay 60kii la dowladoobayna dee xogaal baa la ahaa muddo yar kadib yaa mucaarad ka bilaabay Hargeysa oo inqilaabo iyo wax ka dhaceen oo xasanka inta dhigay intii ka dambaysay oo dhan waxaa socday dhibaatada ku socota iqlaabka iyo angoosiga iyo waxaas oo dhan hoos u socday yaa badnaa dowladdii kacaanka ahayd baa dhalatay waxoogaa wanaaga baa muuqday dagaaladii Itoobiya dhacay waa loo midoobay haddana muddo yar kadib waxaa isbedelay sidii isku midka loo ahaa in nabadda iyo difaaca lagu jiray yaa isbedelay qolada hadda burburkii markuu dhacay ragga hadda maanta Somaliland madaxda ka ah waa raggii xasuuqay dadka jirbarigaaba xasuuqay wixii dhibaya dalka ka dhacay waa raggii horseeday iyaga rag kale oo dhintay maanta aan nooleynba tii ay talka ku hayeen yumay maanta la tal yimaadeen ragga hadda Somaliland xukuma kuwaasay ahaayeen taasuna saasay ahayd sida qabsiga dambe wuxuu ku yimi markii burco wax lagu dhisay annaga waftiga naga tegay garaad Cabdiqani garaad Jaamac iyo garaad Salama garaad Maxamed labadii iyo wixii la socday dhisay Allah u naxariistay yaa ka qayb galay wax lama saxiixin nabad baa wax laga dejiyay dowladnimo looma dhisin nabad baa wax loo dhisay hal la kala fadhiistay waxa la yiri aan dowlad dhisano qoladaas waxay tiri la saarood ka tagtay dagaalada dhacdo dadka colaad baa ku dambeysay bal laba sano way ka maqnaanaynaa bal maamulka wada ujeedaduna waxay ahayd tijaabin bal nimankani waxa ka soo bixi doona tijaabadii labada sano ahayd waa ku fail garootay Somaliland daldurugsi iyo aarsi iyo dadka kale oo ajnabi lagu sheegay iyo wixii aan ahayn beelaha dhexe yaa ka soo baxday markii taasi dhacday saa la ogaaday beeshan la yiraahdo dhulbahanta iyo cidii la raaciyo marnaba ma ay ogolaan marnaba ma la ogolaan dalka in la kala gooyo marnaba ma ay ogolaan in Soomaaliland ka mid noqdaan Soomaaliland kama noqon ka mid ma noqon oo ma ay ogolaan oo Soomaaliland la kala gooyo ma ay ogolaan ilaahay isaga annaga wuxuu la dejiyay meesha Soomaaliya ama laga kala gooyn ama la iskaga hayn lahaa waa meel ilaahay oo wax ilaahay nagu aaminayo yiri iyagaan ilaa daraawish waxaan halka dawladdu baan ku jiray waxaan ilaahay noo dejiyay halka yaan dalku kala goono qolaba waxbay ku wacanta qolada imika Hargeysa Burco joogta reer magaalada iyo khalabta kale waxay saaray oo rabaani weey annaga iyo wixii la raacsan ee deegaanka maanta kala loo kale waxa ilaahay noo aaminay dalka inaan la kala gooyn oo kala dambeeyo sharciyeed kuwa koonfurta jira ilaahay wuxuu aaminay inay wax soo saarayo nolol sameeyaan saasa ilaahay wax isugu dheelitiray marka tii ilaahay noo qaybiyay ee ahayd in dalka la kala gooyn maayo dalka ra'yiga iyaga iyo midaan ogol midaan loo kala gooyn maayo talada aanu qaadanay ee noo meeltaan taasoo waa sida waxaan marka u gudbaya qoladan hadda Somaliland sheegatay ee la yiraahdo waxay ku fakareen Ingiriis bay talooyin ka qaateen markii Ingiriiska ay yiraahdo asana baanu noqonaa waxbaanu samaysanayna wuxuu yiri beelaha baaluhu baydin la socdaan majority bay noqonaa anaga majority lagu yiri man nimankii balkoo kale u kaadiyo dhulbaanta baydin la socdaan may haddaba waxba idin suroobi maayaan haddii dhulbaanta aanu idin la socon idin suroobi mayso wax idin qabsoo iyo dawladnimo ma jiraan da majority minority bay noqonayaan war man nimankii anaga Ingiriis oo caalkayga gobolka ka dhicin koob iyo laba sano la dagaalamay la teen minority ma suurowday hal islu goynina wali tiiba socotay
waxay taasi saa u socotaba waxay istuseen qoladaas aan ku qabsanno xoog oo ku boqorino oo xadka soo xidhno xadka yoocada la yidhaahdo talyaani iyo ingiriis baa kala saxeexday ingiriiskii dalka wada xukumay waqooyiga wuxuu xad ka dhigay dhulbaata iyo isaaq labada gaatama meesha la yidhahdo xadka rasmiga ee lagu xisaabtamaya waa kaa wax kastoo dagaalsado wax kasta oo la yidhahdo buuhodla cashuurta ka qaadi jirtay labada gaatama waa meel dowladda hoose buuhodla xukuntay intii qalalaasihii iyo burburkii iyo dagaaladii dambe yaa la yar kala durkay marka waxaan idiin u gudbayaa wixii dadaal waxaa la yidhi gugii lagugu nacay gabashigiisii maamulkii somalilan la baxay ee is yidhi dowlad sameeya kasii darid mooyaane wax dawa-a ma ay keenin iyaga dhexdoodii baa ishalligaya oo isburburiyey oo islaynaya laba goora dagaal ka dhex dhacay labada waftigii baa laygu daray aan iyaga kala celinayay marna markii dowladdu jirtay inaan annagaa lahayn wariiradaaya markii laga dhex baxay la burburayna iyagaanu lahayn warisdaaya oo marba wafti baa noo lagu diray kii shiikh lagu qabtay iyo kii burcan lagu qabtay waa la socday taasuna waa warbixin oo saasay ahayd iminkana gooni isu taag oo soomaali laga go-o markaana waa ka waaninayna iminkadaas oo ay dalkaygii dagaal ka socdo oo intaasoo dadan laayeen oo magaalooyin rogeen weli caqli baanu u noqonayna waxaanu leenahay war idiin suurogeli mayso waxaynaan laydinku raaceen idiin suurogeli mayso annagu ra'yigaagana idinku raaci mayno annagoo ogaanay shucuurtiina iyo waxaa dabacsantiin idina naqinila caruurnimadayadii qaar ra'yigana idinku raaci mayno khasabna nalama khasbi karo oo awooddaaba cid noolahoo soomaaliya ma jirto inayna khasabto haddii cidi wax khasbayso annagaa wax khasbi karna haddii cidi wax khasbi karta soomaaliya dulqaad iyo dad jacayl iyo qaraabo ilaalin iyo waxaasaanu ku jiraay hadday noqoto in ay cidi wax khasabto annagaa dal badan annagaa wareeg xirana loogu jiraa haddana anagu wax dhiso wax hagaajiya mooyaane wax dumiya iyo waxlaaya soomaali kula kici mayno waxaanu isu celinaynaa inay midnimo ku shaqaysato inay soomaali mid noqoto inay horumar gaadho inay nabad hesho annaga ra'yiga iyagu waa kaa waxaana gudaana waxaana dhaba soomaali ilaahay wuxuu noo dhiibay inaan la kala goyn oo dagaalkii laga kala goyn lahaa buu nadejiyey in la kala gooyana ma ogolaanayno waa hagaag dagaallo xunxun baa ka dhacay hadda laascaanood iyo deegaanada ku xeeran dad badan ayaa isweydiinaya maxay u dhacayaan dagaaladani maxaa soo dedejiyey bal hadda dadka aan arrimahan wax badan kala socon u faahfaahaysan maxaad ku tilmaami lahay waxaan ku tilmaamayaa damaace gardarro ah iyo oqoon gaaban oo iskaashaday waayo dadkii saa u degan oo la talo iyo wax lagu dhamaysan lahaa hadal loo odhan lahaa maxaynu yeellaa yaa la yidhi nimankani ina diidee aan khasab ku waxayno dee dhulbahantana khasab ma ogola annagu waaban ku faraxsannahay maanta waxana lagula kacay 15 sano nin hebel dil kaasaa hadalkaa yidhi dil kaasaa hadalkaa kale yidhi dil kaasaa ra'yi adag qaba markii intaas waddada lagu leynaya oo la dul qaadanaya oo la adkaysanayay yaa dadkii u bislaaday oo golayaal hore la qabtoo la yidhi wax dambe xamili mayno yaa bilaabatay ninkii hadraawi lagu dilay laascaarood awal dadka oo taagan oo diyaara iyuunbay taasi dhacday oo maxaynu eeganayna waa tii qaraxday waa tii shacabkii mudaharaad ka dhigay adduunka mudaharaad baa la dhigaa mowqif waxaa la muujinayaa waxa aad jeceshahay muujintooda iyo waxaad diidan tahay muujintooda yaa la samaynaya caruur iyo gabdho iyo dhalinyaro yaa hoobiye iyo madaafiic iyo beebee iyo wax allaale wixii hub waaweyn hafi artilerigii yaa lala dhacay iyana dhagax bay gurteen dhagaxii baa guulaystay ilaa xaq buu ku socday marka haddaad tidhi maxay ku dhacday
amar ilaahay way iska jiraay dabaac xumo iyo caqli aan fadhiin yaa ku dhacday iyo diidanaan dadku diidan yahay in taladooda cid kale ka taliso oo dalkooda cid kale ka taliso. maanta xaalku halkee maraya maxaase la filan karaa maanta de xaalku waynu wada ognahay meeshuu marayo xabadii baa dhacaysa 2-3 casho buu hakad ku jira qolo walibana waa diyaar garoobaysa Soomaaliland musabix Soomaalida dadka shacbiga ah ee ka soo jeeda dhinaca cidii iyadu bilaayada doorata mooyaane shacbiga Soomaaliyeed waa isku mid waa walaalo waa wada dhalan laakiin maamulka iyo cidda hogaaminaysa way waxa dhibta wada oo dhibta ka socota waxa lala direeyay waa inta marka waxay marka maanta maraysaa sida ay noqon Ilaahay baa og de Israa'iil ciidanku uu ballaarinaya oo leeyahay ku soo kordhiya caruurihii iyo ardaydii baa la soo guraya hadda halkana shacbigii deegaamada iyana shacbinimo isku difaacaya ma aha dawlad kuma jiro dawlad taasuna waa sida waxaana la filayaa Ilaahay aad faraj u furi kara dadkan reer sool sanaag iyo cayn asasi mowqifkeeda waxa weeye xadkeeda inay yeelato shacbiga laga eriyi maayo magaalada la wada degaya ceelkaa la wada cabaya arrintaa la wada daaqaya laakiin maamulka Soomaaliland ee doonaya inuu dalka kala gooyo ee calanka buluuga ah u yaqaan balaayo kama ogolin oo lagama ogola deegaanka ka dhulmaante. waxaa jiray dadaalo beesha caalamku ay wadeen idinkoo madax dhaqameedka kulamada la idinla yeeshay kala duwan oo dawladda shisheeye idinla yeesheen la doonayay in colaadan lagu damiyo maxaa natiijo ah oo ka soo baxay ama miro dhal ka noqday dadaaladaas beesha caalamka aad bay noola xidhiidheen qaar waa noo yimaadeen qaarna fogaan aragga iyo fogaan hadalkaanu ku wada hadlayn kuwa noo yimi waxa aan hadda kuu sheegay yaa nugu sheegay inaanu dalka intaa leena ilaa xadka si xabadda loo joojiyo iyo nabad loo helana in la kala durko inta taaka dhulka iyaga ciidanka Soomaaliland ku jiro xabaddu ma joogsan karto markay dagaalka ka baxa weliba dagaalka waa ballaaran yahay marka hore inay og tagaan si hadalku u furmo oo inta inoo jirto la asxaaroodu jirto in ka badan baa dhiman oo labada gaataba halka weey marka si hadalku u furmo wixii daba looga wada hadlo inay bal marka hore og tagaan yaanu u jeedinay caalamka wixii loo yimi wixii kale ee nala soo hadlayna sidaas loo sheegay caalamka dhanina wuxuu qaatay gardaradaas uu ogaaday oo waxa la leeyahay sida loo muuqatay isaanu maqalnay duulaan iyo weerar baa dhacay oo dadkii baa la barakiciyay oo magaaladii la burburiyo masaajidadii dhaqtaradii dhulka ka mamnuuc ahaa in wax la yeelo yaa la wada burburiyay oo madaafiic lala dhacay oo maatadii baa la qaxiyay marka intaasoo dhan baa caalamku ka qaylinaya oo la arkaya caalamkuna intaa sida aanu tuusan ama maqlayna ama naloo sheegay dee awaamir bay bixinayaan inay ka baxaan deegaanka dhulbahaate ciidamada Soomaaliland nooji ninkaas Soomaaliland ninkaas Muuse Biixi hadda madaxweynaha ku magacaabay tuu halka ka wado isaga dhexdiisa ka wada oo ka socota marka isaaq waxay doonayaan in la ictiraafo ay maamul iyo dawlad noqdaan god dheer buu kaga riday lagana soo bixin kari maayo marka ka horta waxa dhameeyay ha ka quusteen ictiraaf iyo dawlad loo hirgeliyo hadday taa markay ka quustaan ilaa cidii raaci lahayd la dhisan lahayd iyaga ceel iskaga riday markay nafisaan ay wax kala gartaan annaga ama orgeynayna inay Soomaali ka mid noqdaan oo oranayna waraar dambiinana kala Soomaali ka muuqda dadku wuxuu nacay dalka oo la kala gooyo beeshayadu iyo wixii nala raaciyo wuxuu diiday in dalka la kala gooyo wuxuu doonaya midnimo Soomaaliyeed oo hirgasha oo dawladaha waaweyn laga midnimo oo calanka buluugi ka dulbado iyo calanka khaatimo ee caalamka hadda barta aqoonsadayba wafuudda beesha caalamka ka socota hada shirkii Ethiopia ugu dambeeyay halkan aad ku gasheen maxay iyagu idin sheegeen idin soo jeedeen
Itoobiya waxay noo sheegeen inay dhexdhexaad ku shaqaynayaan oo xabadda la joojiyo oo nabad loo gudbo oo la wada hadlo intaasay noo sheegeen ayna raggana soo loo yimi dee dowladooda dadka u sarreeyay baa soo diray iyagaana Muuse Biixina soo arkay oo wuxuu ku yidhi waxaa ku talisaa waa ogolaanaynaa siday noo sheegeen iyagu wuu naga aqbalayna laakiin horaan u idhi hadal waxaa u liita been la garanayo qofku markuu been sheegayo haddii aan la garanayn inuu been sheegayo macnay leedahay laakiin haddii la garanayo isagoo hadlaya inay beentii tahay dee waa been la garanaya hadalka u liidata marka sidii la isugu bartay waxyaabaha dhacay hadal Muuse Biixi yidhi cid rumaysan karin sidee u suurtageli kartaa in xabadda joogsato laba ciidan isu muuqdo marka taa ma idin sheegin maba suurageli karto annana waa nidhi iyana waa yidhaahdeen ma suurageli karto deegaanka dhulbahanta degan yahay waa in laga fogeeyaa ciidanka Soomaaliland oo ay meel taa ka dhaho dhulbahanta degan yahay ayay joogin annana waa nidhi iyana waa qabeen Muuse Biixi miyaa jirtaa inuu ogolaaday ciidanka inuu dib u qaado sayid Itoobiya ku sheegeen iyagu waxayna yidhaahdeen wuu naga aqbalay waxaan ku talino inuu yeelay saas iyagu nagu yidhaah laakiin diwaaniga ka maamaado barqadii wuxuu yidhahdaa galabtii ma jira wahal maalmahan imika la socon deganaanshaha ka jira deganaanshahaasi waxa la leeyahay wuxuu jiraa wada hadallada idinku aad ku jirteen ma jirta deganaanshaha wuxuu jiraa waa la daalayo iyaga wax soo weerari jiray anagu baan weeraray difaac baan nahay weerarkii manaaficdiiba waa wadaan oo weli waa ridayaan laakiin weerar may soo qaadin hadday weerar soo qaadaan baa dagaalku u dhici lahaa annagu awal difaac baanu imika difaaci baanu nahay hadday naga bixi waayaan wuu soconaya dagaalku marka iyaga daalime iyaga wax inay daaleen waa garanaynaa oo meeshii lagu dagaalamo waa lagu jabay waa garanaynaa laakiin waxay isleeyihiin malaha weli waxbaa idiin haray bal inay nimankani jilcaan iyo inay kala durkaan iyo in dhallinyaradu iska tagto oo biyi qabatay waxay tagaan maalin walba kumayaal ciidan oo gurmada imanayo oo dadkan beelaha degan maxaad adigu isleedahay nin waayo araga baa tahay in badan soo shaqeeyay madax dhaqameed iyo shaqooyin kale soo qabtay maxaad isleedahay ad xalka deegaankaas u aragtaa hadda adigu oo ku dambeyn karta marxaladda hadda jirta loo gudbi karaa marka hore ilaahay baa og say noo doonto laakiin mowqifka dadku taagan yahay ayaanu taagannahay guul baanu filaynaa inaanu weliba Soomaali midna isu soo celinaanu filaynaa markii hore daraawish baanu ahaynoo helka Soomaaliyeed iyo diinta iyo dowladnimada helgadina waa lagu helay diintuna saas ku badbaad maantana Soomaali isu celinteeda ayaanu u gutanaa iyo midayteeda aad buu mahadsan yahay boqor Cabdilaahi Axmed Cali oo maanta aan ku wareysanay halkan aad buu mahadsan boqor Cabdilaahi ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid fadlan raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank